saxaafadda caalamka ayaa hadal haysay qoraal uu barta Twitterka uu soo dhigay dhaliyaha kooxda Borussia Dortmund ciyaaryahanka reer Norway Erling Haaland ka oo bartiisa Twitterka soo dhigay qoraal dad badan oo muslimiina fajacay ama ka ku noqday ciyaaryahankan ayaa toddobaadkii hore kooxdiisa wuxuu ka badbaadiyay guuldarro soo laabasho ayana sameeyeen kulan 3 gool laga hormaray oo ay kooxda Bayer Leverkusen 4 gool ay ugu bedeleen ciyaartaas oo lagu tilmaamo mid kamid ah kulamadii ugu xiisaha badnaa ee xilli ciyaareedkan horyaalka Bundesliga 2021-2022 todobadaasi gool ee iska dhaliyay goolkii ugu dambeeyay ee goolka guusha wuxuu dhashtay daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta ciyaaryahanka wadanka Suuriya ka soo barakacay ee haysta dhalashada wadanka Jarmalka ee muslimka ee Maxamuud Daawud ayaa ka caawiyay goolkii guusha ciyaaryahan Erling Haaland daqiiqada kadib ayuu Twitter ka soo dhigay qoraal dad badan oo muslimiin ay ka falceliyeen qoraalkaas oo ahaa alxamdulillah ya habibi qoraalkaas ugu mahadcelinayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayuu ula jeeday Maxamuud Daawud maadaama ciyaaryahankaas uu yahay muslim dad badan ayaa ra'yi ka soo dhiibtay su'aalo badan isweydiinayay ciyaaryahan Haaland miya muslimay su'aashaasi waxay noqotay tii ugu badneed ee laga baaray baraha bulshada ee Twitterka iyo Instagramka laakiin dad badan ayaa ka falceliyay oo qoyskiisa ay kamid yihiin Haaland muusan muslimin laakiin wuxuu tixgelinayay muujinayna sida uu tixgelinayo agtiisana ugu weyn tahay qiimaha diinta islaamka maadaama dhowr ciyaaryahan oo muslimiina ay garabkiisa ka ciyaaraan sida ciyaaryahanka asal ahaan Turkiga ka soo jeeda ee qaranka Jarmalka uu ciyaaray Emre Can iyo ciyaaryahanka Syria iyo Maxamuud Daawud iyo Jibril Faqudi oo isagana u dhashay Algeria laakiin haysta dhalashada dalka Faransiiska dadka xiiseeya ciyaaraha kubadda cagta ayaa qaarkood baraha bulshada ku soo qorayeen ciyaaryahankan muslimay laakiin ciyaaryahankan muusan qaadan diinta islaamka waa ciyaaryahan Norwegian oo Catholic ah sida darteed waxa uu tixgelinayay xushmadna u muujinayay uguna faraxsan yahay diinta uu ciyaaryahan Maxamuud Daawud u haysto ee diinta islaamka adibadayowga dunida ayaa kadib u fahmay ciyaaryahankan inuu ula jeeday Maxamuud Daawud maadaama sawirkiisa iyo qoraalkaas ay islahaayeen sawirka Maxamuud Daawud ayuu ku soo dul qoray qoraalkan alxamdulillah ya habibi sida darteed Maxamuud Daawud iyo kooxda Borussia Dortmund ayaa soo wada sheergareeyay sawirkaasi iyo sidoo kale qoraalkaasi kooxda Borussia Dortmund ee ka ciyaarta horyaalka wadanka Jarmalka ee Bundesliga ciyaaryahankan wuxuu u yahay tiirka ugu muhiimsan ay ku duulayeen labadii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay 69 gool ayuu ku dhaliyay 68 kulan uu ciyaaray goolashiisa iyo kulamada goolasha ayaa badan waa ciyaaryahankii ugu horeeyay ee taariikhda iyo UEFA Champions League isagoo da'da 20-meeyada jira dhaliyay ku dhawaada 22 gool waana taariikh uu ciyaaryahankan isugu qoray tartamada kala duwan ee qaaradda Yurub hal ciyaareedka soo socda ayaa laga yaabaa in bangiga u jabiyaan kooxaha waaweyn oo qaaradda Yurub sida Real Madrid oo 280 milyan oo euro in hal ciyaareedka soo socda ay ku soo qaataan da'yarkan jooga dheer ee Erling Haaland